gaaday isma lahayn waa lagu soo taajinaa waxaan islahaa qolo badan oo saxaabta ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa ag dhow yihiin aad jooga ayaga fursada la sii doonaa marka waa maasan yahay in la igu soo dhaweeyay marka koobaad waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo munaasabadan aad iyo aad ku quruxda badan oo maamulka gobolka uu soo agaasimay iyo agaasimaysa waxbarashada aad iyo aad ugu mahadsan yihiin runtii sidoo kale martida kale oo la joogta ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha waa mahadsan yihiin ayagana runtii waxaan u arkaa tilaabo aad iyo aad muhiim u ah oo aan isleenahay xuquuqdii gobolkan banaadir ee la raadinay qayb ka mida oo runtii wasiirka waxbarashada uu bilaabay maamulka gobolka banaadirna ay kala shaqeeyeen runtii waan ugu hambalyaynaynaa magaaladan waxay haysaa dowladdii Soomaaliyeed oo dhan ayaa runtii culayska ugu badan boqolkiiba 70 ayada dusha ka saaran yahay walina lama sheegin xuquuqdii ay lahayd qayb ka mid ah boqolkiiba halna Allah ka dhigay oo inta loo soo celiyay la yiri intaanad xaq u leedihiin maamusha adinka maanta in laga bilaabo waxbarashadii oo wasiirku runtii uu ku dhiirado waxa la ii sheegay inay dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe tahay kan sarana in lagu soo daro waa rajaynaynaa insha Allah wadii alla yiraahdo waa maasan tahay haddii uu ku jiro runtii markaad agaasimo uu ka sheekaynayo wuxuu yidhi gobolkan boqolkiiba 64 ay ahaayeen ardadii sanadkii taga la sheegay inay dhaceen number aad u badan waayo runtii wasiir 720 marka la yiraahdo gobolka banaadir imtixaanay ka galeen ee la yiraahdo boqolkiiba 64 ayaa dhacday micnaheedu waxay tahay 71000 iyo dhowr boqol arday ayaa ku dhacay imtixaanka in marka mas'uuliyaddaas cid u qaadato oo lagu wareejiyo oo runtii macallimiinta iyo manhajka la dhigayo iyo ardadu ay isla socdaan wax aad iyo aad muhiim ah weeye waxaan isleenahay hiil muuqda waaye runtii hiil qarsoon maahan waa hiil muuqda wasaaradda iyo gobolkuna oo ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa inta kale oo ka dhiman in la dhammaystiro si loo tayeeyo waxbarashada sababta waxbarashadu waa aasaaska nolosha waa iftiinka bulshada dowladna sideeda haddii aqoonta aysan iska dhisin wax horumar ay higsan karta ama ay u tilaabsan karta ma jirto marka runtii aad iyo aad ugu mahadsan tihiin qolada siyaasiyiintana waxaan rajaynaa waxaa ku dhiman ayadana matalaadii iyo maqaamkii qaybna waa la sameeyay qaybna waa dhimantahay ha loo gurmado gobolka banaadir insha Allah doorashada 2020 intaysa dhamaan golaheena shacabka waa soo dadaalnay meelaan keennay hadda madaxweynaha agta Allah waa rajaynaynaa asagana Ilaahay inuu ka soo fududeeyo xukuumaddana waxaan rajaynaynaa kulleyba hadda xilgaarsiina ku magacaabantiin hadda waqti badan ba ma harin adinkana bal inaad doorkeeda kaga aadan ka qaadatiin oo at least la yiraahdo xukuumaddii baarlamaanka kalsoonida kala laab markay sii tagayda intii yareeda u dhimaneed waxaasay gobolka banaadir uga tageen ra'iisul wasaare adinkana inay insha Allah dhagahanagu maqlaan dhagaha gobolka banaadir dadkiisa maqlaan waa rajaynaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin ambalyo ayaan leenahay wasiirka iyo tiimkiisa gudoomiyahana hadda mas'uuliyad culus ah kugu soo siyaaday adiga tiimkaaga waxaan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay inuu la garab galo in la qabto annaga intii karaan keena waa in garab siinayna aad iyo aad mahadsantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh